daawadayaal idin ahaantiin halkaani waa warbaahinta Bara qodobada maanta warkeena Bara News ugu doorka roon waxaa kamid ah daawadayaal madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa fariin oo soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa wuxuu sheegay inuu saxiixi doono amar madaxweyne oo si ku meel gaar ah loo hakinayo dadka dalka Mareykanka soo gala madaxweynaha North Korea waxaa lagu soo warramay asaguna inuu xanuun dhinaca wadnaha u haleelay kadib qalin lagu sameeyay oo la ildaran yahay taasoo marar badan been abuur noqotay Wasiirada Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa asaguna wakiilada beesha caalamka Soomaaliya u fadhiya xanuunkan COVID-19 sidii loo xakameyn lahaa intaas in kale Bara News oo faahfaahsan daawadayaal ku soo dhawaada waa maalmo Talaada taariikhdu ay ku beegan tahay 21 bisha Abriil 2020 أنا قبل أن أدعو ذي المدحين هذا الكاميرا دونالد ترامب أيها وحول صادق برتيس تويتر كإنه وهنا الشيء إنه صحيح دون عمر مدحين وسيكم الجارة لو حكينا يودت كسوق على ذلك المدحين مدحين هيا وحول شيء تاس إنه لو قل لي فارس كان تنيد فرح بانجوها يا أوجس إن لو جوجي فرينو حلقة قردن بو صادق برتيس تويتر كمدحينها أيها وحول شيء إنه تاسو رجع أبو إنه وحكترتو xanuunkan saaf Mareykanka dunida faraha baahan ku haya iyadoo madaxweynaha Mareykanka ay doorashada ku soo fool leedahay bisha November ayaa toddobaadadii soo dhaafayo bartiisa Twitter-ka wuxuu soo dhigay fariimo uu sheegay inay la xoreeyo gobolka ka tirsan dalkaas Mareykanka iyadoo dad madaxweynaha siyaasadiisa ka soo horjeeday madaxweynaha ku dhaleecayeen arrintan uu ku dhaqaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa lagu yaqaan inuu yahay mayal adag oo wuxuu afkiisa soo qabtay iska sheegay mar waliba xanuunkan faraha dunida ku baahan ku haya COVID-19 waxa la sheegay inuu dalka Mareykanka dad gaarayo oo soo ritay 782,159 qof xaaladda cudurkan COVID-19 ayaa dhimashadu waxay maraysaa dalka Mareykanka 41,816 ruux dadka dhaleecaya madaxweyne Trump siyaasadiisa ayaa waxay sheegeen inuu madaxweynuhu cudurkan saaf Mareykanka u adeegsanayo muhaajiriinta dalka Mareykanka soo gala warar sheegaya madaxweynaha North Korea Kim Jong-un inuu xanuunsan yahay kadib markii qalin dhanka wadnaha lagu sameeyay wararkaas ayaa waxaa la filayaa inay been abuur tahay taasoo la sheegay inuu saraakiil North Korea iyaguna ay sheegeen inay warkaas uusan wax ka jirin balse xafiiska madaxweyne Kim Jong-un ayaa su'aalahaas ayaa midna uusan sheegin inuu xanuunsan yahay inuu caafimaad qabo hogaamiyaha North Korea hogaamiyaha dadiisu yartay mayalka adag ayaa waxaa lagu soo warramayaa in badanna laga been abuurtay inuu hogaamiyahaas uu la ildaran yahay xanuun iyadoo taasu been ahayd gudoomiyaha Kim Jong-un ayaa hadda la ogeyn xaaladiisa ay ku sugan tahay balse warar ayaa sheegaya inuu xanuunsan yahay taasoo naga karta been abuur laga sameeyay Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu la kulmay beesha caalamka safiirada u fadhiya magaalada Muqdisho asoo kala hadlay Ra'iisul Wasaaruhu inay gargaarka ay sii jireen dowladda Soomaaliya ee loo weeciyo dhankaas iyo la dagaalanka caabuqan COVID-19 Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa uga mahad celiyay beesha caalamka siday u garab istaagan tahay dowladda Soomaaliya ee shacabkeeda iyadoo beesha caalamkuna ay ka aqbashay baaqa uu Ra'iisul Wasaaraha u soo jeediyay daawade yaal Bara News warkay maanta intaas ayuu ku ekay dhinaca farsamada waxaa noo fadhiya injineer Saki anigu Cabdiraxmaan warkayna la socodsiinayay faafinta warka waa xaqiina sidaas iyo nabadiino daawadayaal